عد إسلام ور كويسة مش تصبح ساعة دمرتها كوبرة يوم بالعادة كاتو أنا نقف إسلامي كوجاني والله إلهي وتجينا نقف إسلامي كوجاني وأنا هو هيركز دد بقى جارسي إنه سيدا السمايو إنه النقد اللي بح أسكو كاتسي إنه النقد دد بقى جارسي قرع ماضي قبل أن تلوح المويين قبل ولا قبل ما قول وقرع كاس أما هو قرع أما هو قبل أن تلوح وليس الممدد كاس هو قبل أما هو قرع ماضي هو وعد لبدا اسمه نقكر تكحق ايجو wax kala ma noqon karo taraawixda hooyada weys assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh qaartqana qaayga madro meel kasoo joogtaan si kasto maqalkii muuqaalkii idin soo gaarayba halka diga daawanaysan waa channelka shacashaka walaalaha shacashaka ku soo dhawaada barnaamijka dareenta bulshada oo aan caawa aad u qiiraysan diray hadaba waxaan idin hayaa muuqaal sir ah oo argagax badan oo runtii qof kasto arko oo qalbiga ka iimaynayo ma ahan indhaha ka iimaynayo qalbiga ka iimaynayo waxa waaye waa ninkii Cabdi Cajuun ahay ee aan naqaan tukaxag ay jooga ee aan isla hawsha halkaasi ku hartay waa dhamaatay waa gabagabowdi markii gabadhii America ku laabatay waxa uu bilaabay in wax alla wuxuu muuqaal hay soo daay haba soo daayay Maxamed waxa uu soo daayay muuqaalkii asaga lagu dili lahaa waxaag saaxiibayaal hadaba caawa aad baan runtii waxaan aqsanahay waayo waxaan arkay wax dhaqanka Soomaaliyeed iyo diintanadaba ka baxsan waxaas wax kala ma ah waa wiilkii tukaxagay jooga ahay oo inta bistoolad soo baxay waa hada bistoolad bilji حتى ما هنتاس إنا لله وإنا إليه راجعون قبل أنت تدور علاج فديسي يريه ما أنت هدان هالكاس كوجو جورعه ما حد كبدري كرتا بل واحد مقالك إلا دعوة ورينا كدال عد إسلام ور كويسة مش تصبح ساعة دمرتها كوبرة يوم بالعادة كاتو أنا نقف إسلامي كوجاني والله إلهي وتجينا نقف إسلامي كوجاني ودك ديانا كوجدوين ملها مويانة أنا بدي بريسة ده بروح خبنا لا بلا كوبريس هي باسه هذا ساق ماشي ما كنا جوجتو ها عمل ساق لا يا ساق ابل لها انا ساق wax badan baan yurniri wax badan baan niri waa kaas wax baran baan niri waa ka qabta gabdhaha ninkaas wax badan baan niri waa ninkaas la culus laakiin waxayna yiraahdeen waa qabyalistiyaal waa youtuber waa qolaysato waxa ay doonayaan waxa ay sameeyaan bal ilaahay idin ku dhaarshay hadii laga aamusi lahayo oo maalinkaas laga hadli lahayn oo ninkaas aan malab dhixinayn muxuu gabadhaas ku sameeyay bal ninka dameerkiisu siiyay in gabar Soomaali inta kaxay ee meel duur oo geeyo halkaas dhafarka xabada ka qabto ma argagixisa muxuu yaasub tukaxagay jooga anigu horaan dhagartiisa in kugu sheegay markii uu yiri codkeygu kaas ma ahayn laakiin kii horeen kabadha ka dubay codkeygu waxa markaas baan ogaaday ninkaas inuu raganimadii xaq iska dhigay markaas baan ogaaday ninku inuu Soomaalinimadii xaq iska dhigay oo yahay bahal laakiin koox qabyaaladaystayaal ah ayaa difaacayay oo u sacabatumay oo laha wiilku waa qaldame oo qalad buu galay laakiin waa u saxsan ilaahay baa idin ku dhaarshay ma waxaan daawanaa gabar Soomaaliyeed oo waliba walaashiis Cabdi Cajuun maanta safiitusmo Soomaali weyn dad asaa u xiga gabadhu saas u galay wax kala weydiisan maayo waxa uu weydiinayaa lacagtii $21,000 ee أقصد ما إني هو يقدر ده كاميرا يدوبن ماشي تكتب من كذا ساق في سوق هذا واحد بدينة هيا عد إسلام ور كويسة مش تصبح ساعة دمرتها كوبرة يوم بالعادة كاتو أنا نقف إسلامي كوجاني والله إلهي وتجينا نقف إسلامي كوجاني ودك ديانا كوجدوين ملها مويانة شو موجود كورن أنا بدي بريسة ده بروح خبنا لا بلا كوبريس هي باسه هذا ساق ماشي ما كنا جوجتو ها حد يفكر لك سيدي جونجر على قطور ما نلاش halkaas saaro leeymiska meel ku sheeg waa baad iyo xaraan iyo qalad Allah ku haysta gabadhaas Soomaaliland waxa xabsida ka buuxa hadda runtii idin sheegay Soomaaliland waxa xabsida ka buuxa dad loo haysto dambiye ay dad kale u geysteen dad lagu eedeeyay inay calanka Soomaaliya qaateen ba xabsida ku jira laakiin Cabdi Cajuun oo gabar Soomaaliyeed oo u dhalatay deegaanka oo dalka u dhalatay oo Soomaaliland u dhalatay halkaas bistoolad madaxa inta ay qabta duurka geesti Soomaaliland buu joogaa Soomaaliland soo ma ahayn meeshii cadaaladu taali hala qabta ninkaas qabta kulliba gabadhu reer ay leedahay muuqaalka anagu soo day maana dheen ilaa asaad duubay muuqaalkan inagu kamaanan xoogin ilaa asaad duubay hala qabta ninkaas tilaabo sharciga waafaqsan laga qaado cil badana alla cil badana caaw
waxaasuma waxaan u adkaysanaa ma dhaqan Soomaaliyeed baa in gabar Soomaaliyeed oo fanaanada oo caan oo sharaf iyo karaamo leh oo dambi aysan geysan la arag in inta duur cilaa la geeyo halkaas bisoolo madax looga qabto muuqaaladii ka horeeyay waxaan in kula wadaagay intii ila socotay ee taageersaneed baan aad ula hadlayaa waxaan idin sheegay in Safiitus ma dil loogu hanjabay laakiin waad aqbali weydeen wax kama jiraan baa ka soo qaadeen laakiin maanta xaqiiqadu waa ay soo baxdo waa taasa banaankii taala run yelkaba waa la cadeeyaa Cabdi Cajuun waxa uu bareeray oo u bareeri doonaa gabdhaha Soomaaliyeed inuu qoorta ka gooy gabadhii qabiilku difaacaysay kala walaashiis ahaataa alleeleh aduu kama fiicni Safiitus barta uu damiirkiisu ku siiyay inuu gabar yiraahdo halkaas banaanka hadan kugu gowraco maxaad ka bedeli kartaa wax aad adiga ayadu kala sukeedaan mali isku mid baad u tiin kani bahal xitaa ma ora karaan weer ninkii yaqaan weerka ariga marka uu ku soo dhaxdhaco lax kaliya ma disho ama ri kaliya ma disho laakiin wuxuu isku dayaa ariga oo dhan inuu qoorta ka gooyo noolaha weer ka cadowsano ma jiro suugaanta qaar ka raadsi kaasi waa weer tuka xagay jooga waa weer galabtadan baa ugu dambeysay waxaan la ku salaamaya ya salaanteedii iga soo celiya jinnaha salaami salaanteedii iga soo celiya ilma adeerayaan kulli iga soo fakatay waxaas la waxaas family ahaayeen dhamaatay gabadhii meesha artiin way tagtay joojiya hadda hawshiisi iyo waxa aan ka digeen ayuu bilaab waxa uu soo waday yudubiga ag laakiin waxa nasiib darro oo ayaan darro ah in la sugtaba inuu waxaan iyo wax ka daran oo sameeyo inaan daawano taas ayaan darro runtii waa ayaan darro aad iyo aad weyn waan huba heerkaas dad baa gaarsiiyay inuu sidaas sameeyo inuu noqdo libaax isku kaadshay inuu noqdo dad baa gaarsiiyay garac madiya gablan talo xumooyay nin gobo wala gabar ma guulguul waa garac kaas ama waa garac ama waa gablan talo waligiis ilma ma dhalin kaas waa gablan ama waa garac madiyo waa labadaas mid noqon kara tuka xagay joog wax kale ma noqon karo sababtoo ah nin raga gabar ma guulguuli karaba saasna uma gali karo nin raga gabar waa isqabsan karaan hawl waa dhaxmay kartaa laakiin inuu inta duur cilaa geeyo baastoolad madaxa ka saara ee yiraahdo halkan maxaad sameyn kartaa ilaahay ku dhaashay naftu alla dilaa dhintay waxa ay leedahay war anigu meel aan joogo ma garanay maxaad ka hadlaysaa hadii bistoolad baa lagu hayaa way ka suurtooday inuu bom ku siiyo waxa kaga dar madaxii uu ka qaawiyo xitaa gambo uma saar madaxa alla ku go war wuxuu bahalsanaa muxuu ahaa isma lahayn Somaliland dad caynkaas ku dhaxnool laakiin Somaliland anu waxaan ogaa in ahaayeen dad cadaalad ah oo dadka dulmiga iska qabto saacadaha soo socda halkan hadaan soo fadhiisay waan dhahay Cabdi Cajuun ba xabsiga dhexe Hargeysa yaala alle maanta ka bilaabato anu Somaliland cadaalad la dhimaay Muuse Biixi oo wasiirka amniga ah golaha deegaanka ah ninkaas la qabto waxa kaliya xaal xitaa ma waxa kaliya oo dambi ku ah inuu gabar Soomaaliyeed inta bistoolad madaxa ka saaro soo duur ku hayo baraha bulshada soo gali sababtoo ah muuqaalka cid ku xoogta male cid ka soo qaadayna male laakiin asaasi day hadalkii waxaan ku soo gabagabeynayaa garac madiya gablan talo xun mooyee nin gabo wala gabar ma guulguulo